dadka reer sool iyo sanaagna waxa ay rabaan inay helayaan waa huba waqooyiga Soomaaliya ama gobolada waqooyi ee Soomaaliya mushkilad gaamurtay oo 30 iyo dhowr sano maahan 40 sano iyo jarjar soo jirto dawladda intaan inaga burburin xataa jirta ayay wax badanna waa la isku soo dayay welina waa isku sii dayaynaayo kama quusanayna daliira tools badan ama wadooyin badan aan isticmaalnaa annaan isticmaalayna kuwa publica oo dadku la wada ogyahay iyo kuwa aan la ogeyn intaba ergaygana wuxuu ka mid yahay kuwa la ogyahay oo aan isticmaalayno ka mid yahay laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego hal size oo mushkiladda waqooyiga Soomaaliya ama hal tool oo mushkiladda waqooyiga Soomaaliya oo dhan hal mar xalli karaa ma jiro ergay waan magacawnay odayaasha dhaqankana waa dirnay odayaasha dhaqanka waxay tageen muxuu ahaa magaalada Laascaano waxay soo mareen Puntland haddana caawa aan inta fadhinaa waxay joogaan Hargeysa ay joogaan waxaan rabnaa geel duday dhaxdiisa waxara lagama qabto ayaa Soomaalidu kuma maahi jirtay meel xabad ka dhacayso oo colaadi ka socoto oo la isdilayo oo dadkii barakacayo oo maxaan ku raada fariimo aan quruxsanayn la isu marinayo saxaafadda wada hadal siyaasadeed sidoo uga socday way adag tahay sidaas daraadeed annaga hadda waxa priority-ga koobaad noo ah in colaada horta sool iyo sanaag ka socoto in la joojiyo magaalada Laascaano iyo deegaankaas colaada ka socoto in la joojiyo dhiigga daadanayo uu istaago ka bacdina la wada hadlo laakiin iridda kale ee Somaliland maamulkeedii in lala hadlo waa maamul jiro oo meel taagan in ayagana muxuu ahay albaabkaasna uu furnaado wali waa furan tahay mustawa hoose ayuu hadalku u socdaa wali ma imaanin mustawihii sare oo madaxda iyo labada dawladood ahaan loo kulmayay oda bilow waayo hawshaas oo dhan laakiin annagu angal kasta xaajada waa ka rogeynaa si aan u helno midnimadii Soomaaliya dadka Laascaano degan dawladda Soomaaliya waxay u haysaa sympathy gaar ah maadaama calankii Soomaaliya ay wataan midnimadiina ay ku doodayaan waana muujinay oo nabad in dhiigu meesha ka istaago gargaar haddii la sameeyo waan la sameynay haddii dad dhaawac ma jireen wixii aan ka qaban karno dhawaa ka qabanay welina waa soconnaa inta muuqato waa intaas wadiiqooyin kaloo badan oo qarsoon oo shaqa nooga socota dhinac walba na waa jiraan marka walaalahaas gobolada waqooyi degan oo dhan in ay dhammaantood dawladda Soomaaliya midnimada Soomaaliya wada aqbalaan ka wada mid noqdaan rabnaa laakiin si gaar ah waanan u soo dhaweynaynaa waana u tixgelinaynaa waana u muuqanaa gobolada sool iyo sanaag mowqifka ay taagan yihiin hadda ka horna waan sheegnay bismil wax yar xalxalka ah waa lagama tegayo waa wax weyn waana qaadanayna dadkaasi mar walba laakiin waxaan ballan qaadnay horay haddana uga shaqaynana dadkaasi waxaanay raalli ka ahayn inaan lagu khasbi karin waxa ay iyagu raalli ka yihiin ayaa un soconaya marka dambana ay u soo aayaysaa laakiin waxaan rabnaa rabitaankaas laftiisa waxaan rabnaa si nabad ah inuu ku yimaado oo si dhiig ku daatay aanu ku imaan maalintii dagaalku bilowdayna war berriyaan heshiin doonaayoon iskacama qaadi doonaaye xabaalaha korkooda yaana isku gacan qaadin waataan iri maantana meeshaan qabaa in la heshiinayo waa huba Soomaaliya inay midoobaysana waa rajaynaya dadka reer sool iyo sanaagna waxa ay rabaan inay helayaan waa huba laakiin waxaan rabaa waxaasi in aanay dhiigga ku baxaya iyo kostiga dhiigga ay ku baxaya in la yareeyo marka wada hadalkan dhiirigelinaa odayaalaan dirnay maalinta dambena dhallinyaradan in badan oo ka mid ahaan diri doonaa insha Allah hawshu waa socotaa waana rajaynaynaa guul hawshaas hawl qadiyad aad u weyn waa degdegsiiyo biri iyo laba iyo bil iyo labo looga caana dhaliya ma aha waa mahadsantihiin